Abdullah Maxamuud Cali Haybe oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo ayaa maanta shir jiraa'id ku qabtay kadib markii uu maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa ka hadlay qodobo badan oo ay ka mid yihiin heshiiska ay kula jiraan Somaliland oo uu sheegay in uuna halkaasi ka soo bixin wali qodobo muhiim ah. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Khaatumo sida uu yahay. dastuurka iyagu wuxuu qorayaa maxaan ku rahdaa midnimo Soomaaliyeed iyo inaan dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsannahay in kasta oo xukuumaddan ka horreeyay ayba maxaan ku rahdaa deegaanadaas si aad u laxaad leh ay u go'doomiyeen hadday tahay xag international community hadday tahay xag aqoonsi iyo haddii ay tahay maxaan ku rahdaa wax ka qabadkaba. maraan weydiiyay su'aal ku saabsanayd wadahadallada Khaatumo in ay la gashay Somaliland inay tahay mid ay ku biirayaan maamulka Khaatumo Somaliland ayaa waxa uu ku jawaabay hadar Khaatumo constitution bay leedahay sharciye leedahay golayaal bay leedahay waa maamul jira oo dhisan oo ummadda reer Khaatumo ay maxaan ku raad doorashadooda ku samaysteen ilaa haddarna ma jirto mana jiri doonto mana muuqato waxay kaga kaaftoomaan jiritaanka Khaatumo. Khaatumo waa muqaddis, jiritaanka Khaatumo waa muqaddis. annagu sida aanu qabno waa maamul goboleed madax bannaan hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliya sida uu dastuurkaygu qorayo. mana jirto meel ay ku qoran tahay geedi aan uga guuray maxaan ku dhahaa Khaatumo oo aanu meel kale u guuray adeer ma jiro. wada hadalku waa jiray dana naga dhaxeeya oo aan isleenahay warar maxaan ku rahdaa bal in wada hadal xal lagu gaaro qorshuhu taasuun buu ahaa ilaa haddeerna taasi ma muuqato oo maamulka Somaliland cadur dhowdhowda wali uma dhacsana maamulka Somaliland ee gobolada waqooyi kama muuqato umana dabacsana sida muuqanaysa in maxaan ku rahdaa wax dan u noqon kara iyagana dan u noqon kara annagana dan noo noqon kara kama muuqdaan run ahaantii intaa u dhaaf maayo haddeerto laakiin mid baan anigu hoosta ka xariiqayaan xaqiijinayaa jiritaanka Khaatumo waa muqaddis jiritaanka Khaatumo waa muqaddis waan ku celinayaa waa muqaddis jiritaanka Khaatumo qadiman. Abdullah Maxamuud Cali Haybe ayaa sidoo kale ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada maamulka Khaatumo oo uu sheegay inay halkaasi ay haysato abaar daran inkasta oo meel kasta ay joogtaba dhibaato badan ay jirto abaareed haddana waxaan leeyahay deegaanadaas oo si gaar ah abaaro ba'an ay uga jiraan sababaha aan u marayno ama u nimi ama halkan haddeer u joogno ama aan u soo maray wadamadaas aan maxaan ku rahdaa Yurub iyo dhulka aan horaantii ka nimiba aad baanu u codsanaynaa xagga alle in dhibaatadaas maanta soo food saartay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada aan ka soo jeedno aanu maxaan ku rahaa mas'uuliyiinta u nahay xagga allaanu ka codsanaynaa in allaanu marka ugu horeysa weydiisanaynaa inuu abaarta iyo colaadda iyo dhibka haya inuu ka saaro. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.